ciyaaraha sportiska ciyaartii igu yaabka badnayd oo laga yaabo inaadan horay u arkin. ciyaartan waxaa la dhahaa Cooper Hills Cheese Rolling and Wake. waa ciyaar sanadle ah oo lagu qabto buurtan lagu magacaabo Cooper ee ku taala magaalada Gloucester ee dalka Ingiriiska. waxaana la qabtaa maalinta Bank Holiday oo ka mid ah maalmaha fasaxa ee dalkaas Ingiriiska. aan idinkaga dhaco sida loo ciyaaro ciyaartan. waxaa ka qayb galaya 10 ilaa 40 qof. ciyaaryahanadoo dhan waxay fuulayaan buurta meesheeda ugu sareysa. buurtan oo dhirirkeedu gaarayo 200 oo yards ama 182 mitir. kadib garsooraha wuxuu soo fasixi doonaa jiiska ama farmaajaha wax loo yaqaano oo lagu duuduubay waxyaabo ka celinayo dhiiqada ama wasaqda ka hor second inta dadka la soo fasixin. jiiskan culeyskiisu yahay 3 ilaa 4 kilogram oona u samaysan sida circle-ka ama owga oo wareegsan. marka qof walba oo ciyaaryahanada ka mid ah wuxuu rabaa inuu qabto jiiska, laakiin way adag tahay in la qabto sababtoo ah xawaaraha uu ku socdo jiiska ama farmaajaha. wuxuuna ku socdaa xawaare 70 mayl saacadiiba ama 110 kilomitir saacadiiba. xitaa haddii uu qaban waayo ciyaarta waxaa ku guulaysan doono qofka ugu horeeyo ee ka gudba finish line-ka. mudanayaal iyo marwooyin, ciyaartu way dhammaatay. hadda ma isweydiisay muxuu qaadan doonaa guulaystaha? guulaystuhu wuxuu qaadan doonaa jiiska oo la ceersanayay inta lagu guda jiray ciyaarta. What? Bro, what are you talking about, man? intaasoo burbur ah, intaasoo feero xanuun ah, waxaa loo maraayay jiiskan dhiiqada leh. waana sababtaan ula yaabay ciyaartan. coronavirus awgiisa sanadii 2020 iyo sanadii 2021 lama qaban ciyaartan. waxaa dib loo qabtay sanadkan aan ku jirno 2022 bishii June ee la soo dhaafay. ciyaarta maalinta Bank Holiday waxaa la qabtaa labadeeda gelin. gelin waxaa ciyaarayo ragga, gelin waxaa ciyaarayo dumarka. waxaana ku guulaystay dhanka haweenka gabadh lagu magacaabo Abby oo ka soo jeeda waddanka Mareykanka, North Carolina. waxay tiri markaygii ugu horeysay waxaan ka arkay ciyaartan YouTube-ka. dhanka kale xagga ragga waxaa ku guulaystay ninka lagu magacaabo Chris Anderson oo guulal badan horay uga haystay ciyaartan. fadlan like saar muuqaalkan. ma ka qayb geli lahayd ciyaartan? aragtidaada qaybta hoose commentiga nagula wadaag. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.